ninka mudanaha ka soo yeeray Wajeer South ma ahayn inuu hadalada qaarkood heshiimada uu baaq aynkaas u cilaamiya waxaan aragnay inuu cilaaminayo dagaalka dadku galinayna ma garanayn ay mas'uul la'aanta ku aragnay mas'uul xumada nooca lama soo marin MBL kala ka horeeyay far dheeraata noqotay magaalada kaliya ma joogtid Wajeer County faleed MBnaga xafiis ka furay xafiiskii asaga ahaa maanta la furay kaliya ugu rijo ugu dambeysay baasiriga la bixinay markaan u soo laabto baasiri aan ka hadlo baasiriga qofna inuu 150 kun la siiyo qofna 3 kun la siiyo aniga agdayda cadaalad uma arko political threat kugu noqday catow waxa ku leenahay waqtigeeda sug hadii wax qabadka laga badiyay hadii maartay laga hadal badiyay hadii shaas tulki laga soo dhaweystay inaad fadna kicisa maaha horta aniga magacayga adin sheegay waa diiriya daahir oo loo yaqaan kansalo dur gudoomiyaha bulshada xoololeyda ee Wajeer South ka markay tahay MB-gan hadalkiisii oo uu shalay uu ka hadlayay uu soo galiyay dhageysanayni arinta MB-ga arrin qabata maaha arrin ku raacsanaana ma hadaan bulshada Wajeer South Wajeer South horta nin mas'uul ah oo ku hadli karin baa jira maxaa kamid ah gacan baa la soo tagi anaga ba ka xishoonay nin mas'uul iska dhaaf cadaalad baan rabnaa cadaalad marka MB-ga cadaalad darri asaga bilaabay asaga naftiisa bilaabay oo ku bilaabay bulshada Wajeer South maxaa ku bilaabay way ugu horeysay xaqii Wajeer South oo dhan ay lahaayeen oo baasirigi nin waxa istuunugiisa uu ka bixinayba هذا سبالتاي حقوق كطوري عدالة دري كو باش يكمل لعبتي أصقوه لبا وأنيك وجه صوت كلا غير مقالة تجي أنا حكي بعد ديفورت ده ماشي أقول بلشة بدل أقول تتك بدل ولا يبي يموتين أصلا إن ده كمار كان يبي ديفورت تجي وبنقول ولا يموتين ولا شيء يبي أنا برشة صار السنة وانا برشة حق له هنا وانا وحاجة له هداي إن شاء الله شيء عيالك يقول عالي اللي جت هاجي نين بعد هلا هداي إله عدوا جنة الجلي إله عدوا جنة الجلي والعيالك أصلا مرة تاجي بالشيء واحد هذا الشيء قادر أنا أبيك ما تدل مينا وحقوا ليه شيء جينا وحساق قبلنا مش جينا عيالك اللي جت هاجي ما شاء الله يقول عالي لحد صلاة من البيئة يقول هاي وحد تاجي ماشي مو دكتور عمر عدالة دري مركب حلا يعدوا ضد يكون ذيني أمبيجني يكون ذيني أصلا يكبر لعبتي تنكله قفناها دبتي قفناها اسوتان دورد ايغا هوغامنها قفنا horta wuxuu qafana u yahay illa godam ila rajda bula waxa daal dariino sameey anaga arkay bulshada khayraadka waxaan la midnahay anaga hadaan bulshada Wajeer South bulshooyin kale baan la midnahay midda dibid qafanaha bulshadan county oo dhan buu u yahay ma Wajeer South kale uma dibid qafana illa sida sheegay illa godam ila rajda bula uu yahay Wajeer South horta dawladdan county waxba kama qabanin waa been waa anaga leh bulshada Wajeer South meel intay fariisatay go'aan ay ku qaadatay in dawladda county-ga maartay dacayada laga fidiyo afka laga dagaalamo la buuqana ma jirto maxay hadda sarif isbitaal baa laga dhisay weyn dawladda county-ga dhisaysa diif waatan soo sheegay mashmuuca Axmed Cabdullaahi يا عتو بيجرينتي هذا لا ديارينها مركا دنك خيراتك أنا وحن كلا سمعنا هاي بالشدة كاونتي قد دقن عند وحنا ودي دينا مجلس مركا وحن باقول شيء هنا إمبيجن أفرنا كوفرين وين وبكورة ليه يا أيوة طب جرتين عدان أمد عروسة شيء دي عبد الله وحازي عالق ولا سوى عاوت إن قاعدانه وطولها سيدك ما هو ده مجرتين عدان وما دعان عروسة شيء دي سيدك وحالي هذا كهرة سيدك هذا كهرة حالي جال تصور دعي يا نين عبد الله دعي يويل كيس الرعي وحده جال دخليه صح مجرتين وما دوانكم مجرتين وصور ده جري ودعي عبد الله يويل كيس قربر ده ما ده تك 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 ومحجرة سيد قال الله مرهم حيري مجرتين عدان وما دعان عروسة شيء دي
cabdulle waxaa siiyey cawaanku dhalay see waxay caadadu tahay inay ciidaha gaadaane casir maan ku weerar caga daruureeye cirka maa ka soo dhaco labada ciid haysta war dhambiire wajaha south ka soo galay inuu bulshada raa wajaha south kala qaybiyo uu dadka ku diro adeer adig kuma horeysaan kuleen kuwii ka horeeyay ayaa ahaa مدر أنكو تصو عدالة درينية وضحت كل شيء ماله أفر هذا بكورة وين تكلم اللقل أيها دنبيو طيب وش ذكر الرجال صوت نبض بنديارو نهاي في المرة مرة بنو قفنا هنا وقفنا هنا أنا علي بلو حسن أو دقن مقالة وجير قرهان وجير كاونتي كنسل جيدة وجير صوت وحان كهذه الرواء الرماها العي oo gafka oo odayaalka shalay ay ku hadleen oo ninka mudanaha ka soo yeeray wajeer South ma ahayn inuu hadalla qaarkood oo heshiimada uu baaq aynkaas u cilaamiya waxaan aragnay inuu cilaaminayo dagaalka dadku galinayna ma garanayn annaga reer wajeer South hadaan ahnay asaga dhaliil baan ka aragnaa inaan xisaabtanaan rabnaa waxaan ku xisaabtamaynaa CDF khayraad keeda ma aragna keera qolada khayraad keeda ma aragna kuura khayraad keeda ma aragna wixii oo dhan inay dad u shaqeynayaan aan ka war haynaa oo dad ehelkiisa ugu dhiibtay sida iyada ahayd baan haddana ku darajaynay oon ku iimaan qabnay oon iskaga aamusneen maadaama maradu iska fiiqay inaan marada ka fiiqnaa rabnaa maanta waxaa kaloo jira ninka MPga Wajeer South yuu mathala Wajeer County-na Soomaali dhan baa la mathalaa oo laba nin baa mathala His Excellency Ahmed Abdullahi iyo Deputy Governor Ahmed Mohamed labadaas mathalan labadan nin waxay u shaqeynayaan Wajeer County at large oo ma shaqeeyaan shakhsiga u shaqeynaya oo Wajeer South ku koobneed waxaan haynaa mar alla markuu safar u soo baxaya inuu takoor magaalooyinka u kala takooray magaalo Shimbirbuur la ma mara magaalo wal arag la ma mara magaalo la Abdul Gulbeel ma mara Diif ba soo mara Ibrahim Uray ma mara meesha la dhahaa garile ma mara waxa ku kalifay markuu soo baxa safartiisa uu ku qaasay inuu ka soo dhaca biyo madow kali waa ma garanayna anaga kuurayga waa banaanay waxaana dhagaxlay police station aan ma dooran asig halka kale tanaan doortay laakiin MP maanta Wajeer South u soo galay asigana fidna iyo wax cudur kansar la lagu noqdo liki waxa jira Wajeer aniga waxaan diganahay buul hadal xafiis bi meeshan ka furay xafiiska asiga CDF lagu adeegana lahay ilaa wuxuu aan gabartayda iskuul ku jirta Wajeer waxa jirta teaching training college ku jirta gaars gabadha ayada ahayd fiiskeeda inaa waraaq inta ka qaada aan geel abasiide war xafiiska la furay yaad u furtay dad buu u danaynaya oo ku qaadanaya mishaar ku qaadanaya dad u danaynaya oo ku qaadanaya inay lacag oo maartay rent ka soo gashay war madada u danayni dadna macayni ay mas'uul noocan ta ku aragay مسؤول حمد النوع لما صار مرن إنبيار كلا كهري فرق دارتان نقطي مقالة كلها ما جوكتي وجار كاونتي فلذا كده وجار كاونتي خيرات كذا ونسوق جاري سديد يتولى حرم وضع الفروع عصالة مد آتك مجره مد أطبقتك مجره مد ومش جوكت دابو جيس مجرت مد الإنجو أنت الغادات جيس مرة ورمحاد وجار كاونتي فرح الله صلى الله عليه هداد رقتها وحال الربي إلى كعذا لما كان ملحق لتشتا للمدنات اللي حسب كاونتي درتا باق غايلي كما يريس ما اريد اقول له هذا حوق بالاستعمالي وهذا حوق حمراء حوق نوق لها لين ادين كرت حوق استعمال كرت مالها محكمه ديال قلتنا هذا بقول روح كانت بقول روح عن كان ارينا كود انجكشن كو قادنا واحتر كان ارغلي وحمران ارغلي وريان دياران كموديني waxaan ugu noqotay cancer warniyahow waxaan kaaga baaqayaa ayaha dab u tiro waxaa la dhahaa magacayga Cabdullaahi Sahal Cali baa la dhahaa Cabdullaahi galti baan ku magac dheerahay odayaalka Wajeer baan ka mid ahay dawladdan laba dubudka iyo gafanaha ay ka taliyaan Ahmed Abdullaahi iyo Ahmed Caato waxaan u malaynay dawladdii hore ee jiir yaa ugu dambeysay wax la qabto maantana Allah ku soo celiyay wax qabadkooda ayaan ka hadlay wadanka afartiisa gees meel ay ku yartahay iyo meel ay ku badan tahay meel aan shaqo laga qabanin ma laha waa mid hadda loo soo wado oo u diyaarsan iyo mid hore loo qabtay
labadan sano hadda aan ku dhex jirno iyo googo'a waxaa nadiir xaqiiqo oo marag inay noqonaya bal intaan la gaadhin magaalada bannaankeeda kore lacag muuqata xoolihii la geliyey gurigaas yaa makhraati inin ah oo Soomaaliya oo dhanba makhraati u ah guriga weyn ee magaalada laga dhisay oo isbitaalka caafiga ah welina ma arkin kawntiyada kale guri noocan oo kale oo ku dhisan dawladdii horena say wax u qabatay waad ogtiin haddana haddii ay ku soo noqdeen labada nin oo mas'uuliyiinta annada ah oo madaxda ah waa laga fiican yahay in madaxda horta la aflagaadeeyo in madaxda la caayana waa laga fiican yahay culimadana lama caayo madaxdana lama caayo uqaashana lama caayo wax qabadka markaan ka hadlayno war maalintii dawladda ay soo dhalatay iyo maalinta maanta aan ku joogno maalin ay wax qabanin ma laha kob ayna qabanin ma laha wasaarad kastana waxaa loo yeelay maamul isdaba jooga wasiir iyo ku-xigeenkiisa iyo daaragtayaal baa jira marka meel dhib ka jiro waddanka ma laha meel aan wax laga qabaninna ma laha haddana wax qabashadii way bilaabanaysaa haddana tii dambe tii horena way dhacday tii labaadna way dhacday tii saddexaadna hadday socotaa wax yar nimankii horaa ka hadlay ani kama hadlayo imbiga sabab ay tahay kor waayeel waa wada indhaa la yidhi dhibaatada haysata waddanka annaga hodan ahaan markaan degannahay wajeer sawd dadkeedii oo dhan baa degan meesha wax wajeer sawd ka soo fulo weli imbiya ahana ma weli ma arkin ani laakiin intaa waxba ma sii dhaafinayay laakiin wax qabashada gafanaha iyo dubudkiisa waa kow wajeer maalintii county ka curatay iyo maalintii hadda aan ku jirno meel aan la qabanin wasaarad aan wax laga qabanin ma laha waxaan leeyahay odayaalka war markaad hadlaysiin xafiiskaba ma timaadiin wax ma weydiisiin war maxaa naloo qabtay ma dhahdiin xafiisyadana ma timaadiin meel aadan waxbaba ka ogeyn maxaad ka sheegi kartiin waxaad ka sheegi kartiinba ma laha maba ka ogeydinba xafiisba ma timaadiin maba ka warqabtiinba marka nimankan 24 saac way wareegaan waddanka wuxuu u baahan yahay dhibkiisa soo xaliyaan wuxuu u baahan yahay bay soo qoraan wixina waa wax dawlad ay maartay ka dambayso oo madax kale ay ka dambayso oo waddanka oo dawladda sare ah wixii soo gaarana waddanka si loo kala badsada khayraadka waa gaaraa marka waxaan leeyahay ha laga daayo dawladda cambaaraynta ha laga daayo dawladdan nidaam iyo system bay ku socotaa waxna way qabanaysaa cambaarayntana ha laga daayo anigu magacayga waxaa la yidhahdaa khaliif cumar bulow waxaan ahay kawnsalii heere degmada qulcaaley kana tirsan koonfurta wajeer wajiya south aniga bartamaha maanta waxay soo fadhiisiyeen rabaa inaan wax ka sheego horta waxaan rabaa in aan dadka u kala sheego adduunka dadka ilaahay ugu badiy dad waxaa jirta ilaahay 6 lixaad uu siiyey rag curyaan iyo dumar curyaanna waa la helayaa noolahooda waxay ka mid yihiin bini aadanka marka dadka wajeer ku dhashay oo weliba madaxda wajeer qaarkood waxay u egyihiin inay u badan yihiin curyaan maskaxday ka jiran yihiin magaaladan wajeer shalay waxaa ka dhacay wax kicina oo aad muddo in fidna la afufaya tahay waxaan la yaabanahay nin idil oo akhristay oo journalist ahaa international correspondent ahaa oo meesha ugu dhulka baaxadda weyn ee wajeer south laga soo doortay ninkii la rabay inuu dadka dejiyo sharcigana isticmaalo iyadoo shacabka la kicin shalay hadduu golaha intuu meel istaagay gabdho iskugu yeeray shalay fidna afufay waxaan anigoo u malaynayaa marka adduun waa gadoomay maxamed cadow mpiga wajiya south waxaan u sheegi rabaa walaalow nin akhristaan ku mudaya leen wariyo maskeed walaalow waxaan kuu sheegi rabaa fidnada aad ku dhex waddo ummadda reer wajeer khaasatan reer wajiya south niyow ka istaaji wajiya south aniga hortaha councilor iga dorta waan ka soo taliyey weligayna fidna kama kicin laakiinse waxaan la yaabanahay bending bill dadkay ka maqan yihiin kow si maxaa la rabaa in laga hagaajiyo waxaa la rabaa dadka iyaga ah in ay la xisaabtamaan xoolahooda ay ka doontaan county government haddii loo diido sharci ayaa jira laakiinse waxaad meesha soo gelisay fara ka hadal warniyo waddankan waa waddan sharci uu ku dhisan yahay waddan ay ka jirto maaragtaa xaruuno badan oo booliis ah sirdoonka waddanka DCI-da marka haddaad insighta noqoto adoo nin mas-uul ah oo aad hadda gacmaha lisu tagaa waxaan u malaynayaa niyo waa turantay hadalkaa ka soo laabo laba waxaan rabaa inaan u sheego odayaasha guddiyaha hore ee la jibiyey sida guddiga aniga ka dhashay maxamed suwel
hal ninoo guddiyo maxamed sheer maanta ma jiro oo reer wajiha sawda gebigood waa jibinay guddi kale lamaana dooran guddigan iyaga uma brokasaa iyaga uma gafanooyinka ku ordaayey iyaga uma shacabka beer ugu matalayay dadka markaa shaqadii way dhammaatay maxaa soo haray in maartaa ay dilaan la noqdo inta ka horad maxamed caddow u tag press conference la bixi caatow maxaa lagu cayaa caayba ma qabe caatow waa deputy governor wajiha county maaha MP wajiha south cid kagta ma laha waa meesha ku dhashay hadduu kuura ka rabo waktigeedu aadi doonaa laakiinse haddii politically threat kugu noqday maxamed kugu noqday caatow walaalada waxaan ku leenahay waktigeeda sug haddii waxqabadka lagaa badiyey haddii maartaa lagaa hadal badiyey haddii tulkii lagaa soo dhawaystay inaad fidno kicisa maaha aniga waxaan ku dhihi lahaa horta adiga soo dhawow maxamed caddow wajeer ku soo dhawow horta guri ka dhiso wajiha south guri ka dhiso lagugu imaado anaga dadkan ku dhashay gaaris oo wajeer mas-uuliyadda ka soo doonaya ha naga daayaan fidnada magacayga waa ugaas luqmaan ugaas jimcaale waxaan nahay odayaasha countiga waxaan maanta rabaa inaan sheega reer wajeer waa sambuuse 3 geesood ah walaalahin ogaadeen walaalahin ajuuraan walaalahin dogoodiyo waa sambuuse 3 geed waa dad isla dhashay waa dad aan meel u kala soconin waa dad nabadda jecel waxaan qarsanahay qof dan gooni leh wuxuu sheegay inay maanta ay kicinaynin oo dad nabadda aad u jecel inay yihiin oo dad xisaabtamay inay yihiin annaga horta waxaan sheeg ugu horreeya baaqayna waxaa weeye walaalkayn in warkii uu dhahay oo suuqa aad ka sheegay oo meel macshar ka sheegay oo media aad ka sheegay inuu saban xarka bixiyo warkaas war reer wajeer u dhahan maaha war reer sawd u dhahanna maaha war wajeer oo dhan u dhahanna maaha waa war nin fikir ninkoo keligiis ka soo baxay way iyo odayaal yoro dhagta wax ugu sheegay marka warkaas waa ka xunnahay waxaana leeyahay walaalkeeyow 5 MBO kala wajeer kula joogto discountiga inaad dhulka wajiha south ila horta waxaan qarsanahay wajiha south waxay wajiha west heshay oo wajiha south west male waxay wajiha east heshay oo wajiha south ay west male waxa wajiha north ay heshay oo wajiha south ay west male wala balance garay wax walba dhaqtariina la qoray si siman baa loo qortay bulshada complain kama qabta waxaan aaminsanahay bulshada reer south oo maxamed caddow maanta complain ku keentay oo ku dhacday jiir uu la xaqiray inay jirin baa filaya mana jirto sidaa awgeed waxaan aniga ku kalsoonahay maxamed caddow maxaan rabaa caatow iyo jiir wax qabyaalada liira kuma shaqeeyaan waa dad borosaskooda leh 2 sano ba hadda noo dhamaatay 2 sanana 6 koosiis gacanta way wada gaartay marka waxaan leeyahay walaalayaalow luqadda qadafka ninka ku hadlayo countiga waxba kuma diidana Ahmed Jiir iyo Ahmed Caatow diyaar bay ku leeyihiin wajiha west iyo wajiha south iyo wajiha north iyo wajiha east kulli inay si siman walaalo siman ayagoo magac sharaf leh inay kaga tagaan ay rabaan marka waxaan leeyahay ka soo apology garay arrintaas waa ka xunnahay wax ay inta kala heleen wajiha south ay weysana ma laha maray weynaysana ma laha walaalahan waa walaalo aniga waxaan u baaqayaa dadkii dhag xun war yar oo xun dhagtooda lagu ridow ha qaadanina warkaas waa war xun waa war nin ra'yigiis ku soo yaaray ha qaadanina nabadan ku baaqayna wajeer magacaygu waa nabadoon muumin xaamud oo kamid ah shacabka wajeer waxaan ka xumahay codka ka soo baxay MBga wajiha south waxaan moodi jiray nin international ah oo dunida inteeda badan soo maray oo ka weyn waxa la yiraahdo qabyaalada iyo fidnado aad baan ugu xumahay inuu fidno wax ku raadiyo walaalkeen maxamed caddow waxaana baaq dheer ugu diraan leeyahay walaalkeen bedelka aad maanta dhihi lahayd horta waxa la kala iibsado oo dhaqaalaha lagu bixiyo qalinka maahin waa fikirada wanaagsan inaad fikirad wanaagsan ku hadasho ayaa kaaga wanaagsaneed inaad dadka caan dadweynaha aad ka caamiso waxa taas ka bedelkeeda aan walaalkay ugu baaqi lahay waa MBga wajiha south wajiha county markii la yiraahdo 6 county baa county waa adeegahaya meesha dhaqaalaha county lagu qaybsanayo miiska imaaw
xaqa wajiha sawdna miiska ka qaado bedelka as propaganda leh dawladda oo banaanka dhagax tuur ku sameyn leed oo media ka hadleed adiga oo madax ah oo shaleeto aan garuun ku soo galin oo ku soo galay kuro oo ogsoona marka waxaan dhihi lahaa walaalkay arintaas waa nasiib darro ka laabo tan kale oo walaalkay ka hadlay ceelal biyoodyada waxaan sir ahaan ka warhayaa ceelal biyoodyada ka jira wajiha sawd markii la yiraahdo ha lagu wareejiyay wajiha waasko dawladda ha la wareegtay maxamed cadow asaalaaruush bixiyo dhaha diida waxaan ka warhayaa inuu dadka garuumo u dhiibaayo oo isleeyahay aan lagu wareejinin wajiha waasko ceelasho maantana aad leeyahay ceel baa jabay dawladdu wax kama qabanin ceelna looma qodin dhanka kalena aad laaluush bixinayo oo leeyahay wajiha waasko aan lagu wareejinin diida ceelasho baan ka warhayaa waxa kale oo leeyahay ninka dhahay dibad gavanaha waa alaalkeen caato waa call box aad baan ugu xumaa caato call box ma waa dibad gavana waa dibad gavanaha ugu sharafta badan 15 sano oo jira countigan waana ogolnahay waa aqoonsanahay waa xishmaysana waana ka dambeynaa wuxuu dibad gavana ka yahay godoma ward ilaa sabuule intuu dhaxaysa iska yahay waana ka ogolnahay waxaan aaminsanahay inay tahay ninka ugu sharafta badnaa waxaan ogsoonahay dibad gavanayaasha asiga ka horeey nin gavanaagiisa 3 sano 2 sano la shaqeey ma jiro arrimo shakhsi bay dhihi jireen jeebka halii buuxiyo marka arrimahooda shakhsi laga hor imaadana duurka ay gali jireen oo dhagax tuur bay sameyn jireen shacabkan uma shaqeyn jireen haddana waxaan ogsoonahay dawladdan jircaato inay gacmaha is haysato shalina ay ahayd manifestodooda riyo runtina maanta waa la gaaray sida dhabtay maxaa kamid ah runti waxa kamid ah isbitaalkan la dhisayo level 5 ko intaan la eego wajiha laga dhisahay waxa kamid ah assembly waxa kamid ah suuqa xoolaha waxaan ogsoonahay 6 sub county in dispensarial dayactir lagu sameeyay oo la hagaajiyay aniga baa kamid ah dadka soo dayactiray oo qaybaha qaar loo diray maantana daawooyin iyo horumar laga sameeyay waxa kale oo ogsoonahay dawladdan county inay talaabo hore u qaaday oo kamid ah waxyaalaha ay qabatay inay diinta gacan ku hayso oo culimada la shaqeynayaan waxa kale oo ogsoonahay ninka maanta countiga gavanaga ka inaad qabyaalad ifidna ku shaqeynaynin oo leeyahay kaale sharaf iyo maamuus iyo magac ka tag wiligiisna waa ahaan jiri maxaa yeelay wuxuu rabaa inuu magac ka tago laakiin diyaar u maha inaad fidna ama qabyaalad ku shaqeeyo waa nin magac doon ah waxaan ogsoonahay hadeertaan wajiha sawd meel kamid magaalada Dhajadabula saraf inuu ka socdo isbitaal level 5 baa ka socdo oo hadda dhismihiisa aad socdaa walaalkeen maxamed cadow wuxuu ku hadlayaa waa waxaan xaqiiqdeeda lahayn aad baan ugu xumahay marka waxaan leeyahay nin madax baa tahay miiska wada hadalka imaaw dawladana la shaqeey dadweynahana bedelka fidna farileed wanaag inaad ku hogaamisaa ayaa ku fiican baan dhihi lahaa